السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان الخير باني سلام يا ميل بوجوبتين. ما أنتوا waxaan jeclahay inaan arrinkan ila wadaago. Waxa la yiri waxaad naftaada la jeceshay qaybkana la jeclow. Arrimahan ama alaabtan inoo hortaala aadayaan anigu faa'iiday. Waxa laga yaabaa inay dadka qaarkood iyaguna ku faa'iidaan sidoo kale. Saasaan anu go'aansaday inaan ila share gareeyo. Cayenne pepper ama basbaaska caadiga ah u taqaan waa basbaaska ama tuquska iyo sinjibiilka iyo chamomile tea chamomile-ka oo kan malaba ku jira isagoo biyo wada jiraan aad isticmaalo flaxseed peppermint waa nacnaac iyo qistal hindiga iyo moringada intaasi waxyaabo aan daily aad u isticmaalo ee runtii wax badan iga caawiya xagga caafimaadka waxaan ahaan jiray anu dadka aad iyo aad gas waliba santiisa ugu dambeeyay aadan ula ildarnaa dhakhtar walba oo tagay runtii waxba waa ay qaban waayeen oo dawooyinka anti acid iyo anti inflammatory waxa siin jireen oo taasuna waxba iga caawin weeyday laakiin waxaan go'aansaday inaan home remedies-kan oo gurigeena dhan laga helo inaan isticmaalo kadib way caawiyeen cayenne pepper dad ba aaminsan basbaasku gaas ku kiciya laakiin waxyaabaha lagu daweeyo kamid yahay haddii aad gaas la tacaalayso laga yaabo inuu adigu caawiyo laga yaabo inuu gaas ku kiciyo because ani hadii uu ii shaqeeyay kama dhigana adigana uu ku shaqeynaya dadka jirkooda reaction-kiisu isku mid maaha laakiin ani way shaqeeyay wuxuu kamid yahay waxyaabaha gaaska lagu daweeyo xataa naburada caloosha ee gaasku koos gareeyo wuu daweeyaa cayenne pepper-ku faa'iido badan baan ka arkay gingerka sidoo kale aad buu fiican yahay aan waan isticmaalaa gaaska xataa wuu fiican yahay faa'iidooyin badan buu leeyahay geedka mucjisada ee flaxseed waa waxyaabaha aadka isii caawiyay waliba number 1 oo subaxdii markaan saa u kaco wax kale intaanan cunin daily routine-kayga kamid noqday inaan laba muqaacadooda kamid biyo kulul intaan ku daro kadibna aan cabo saacad kadibna aan quraacdo peppermint-ka isaga chamomile-kan ku daraa labadaas laba koob maalintii cabaa gaaska waa iga dejiyaan overall health-ka na aad bay uga qayb qaataan xataa madax xanuun haddii aad leedahay chamomile-ka iyo peppermint-ku aad bay ku anfacayaan iyo sinjibiilka iyo cayenne pepper-ka intan meesha kaaga muuqataaba aad bay ku anfacayaan muringaduna sidoo kale faa'iidooyinkiisa dad badan baa og lagama sheekeyn karo haddii aad daal dareemaysid fiitamiino badan baa ku jira immune system-ka ayuu caawiyaa waa ku caawinayaa fiitamiina A K ayaa ku jira iron baa ku jira aad buu markaa isaguna muhiim ugu yahay guri kastaba shopping-listiga inay kugu jirta intani aan waxaan arkaa inay muhiim tahay xilliyadii qaboobahana maadaama lagu jiro intani waxay ka caawinayaan xataa ay wanaajiyaan circulation-ka dhiiga ama isku socodka dhiiga xilliyada qaboobaha badanaa waa xilliyada ay blood clotting-ka ama xinjirowga dhiiga dadka uu ku badan yahay laakiin intan haddii aad isticmaasho waxaa laga yaabaa inaad ka hortagtid mar walbana badanaa dawooyinka dhakhtarku kusoo siiyay waxay leeyihiin side effect ama xanuunka ay daweeyaan waxaa jira xanuun kale oo ay la socdo oo ama ay koos gareeyaan baa jira dawo walbo dhakhtarku siiya side effect buu leeyahay haddii aad akhrido warqada instruction-ka la socda dawada haddii aad akhrido xataa paracetamol-kaas ugu yaroo side effect baa ku jira marka dadku inay waxay qabanayaan way jiraan iyaguna xataa 100% ayna ahayn dawooyinka la sameeyay inay 100% xanuunka daweynayaan balse lagu daweeyay haddana waxaa jira acraad jaanibiya ama side effect wax la yiraahdo saameyn kale oo garab socoto oo jirka ay u saameeyaan laakiin waxan waa waxyaabo natural ah side effect aanan lahayn jirkaaga aanan damage u geysanin si walba haddii aad u isticmaasho guri walbana aad ka heli sidoo inta badan yaala waxaan oran lahaa qof walba ha ka faa'iideysto oo yani ha isticmaalo haddii aad ilmo special need qabtid ama aad leedahay ilmo special need ama ilmo baahiya gaarka qaba especially autism-ka chamomile tea-gu wuu caawinaya aad buu caawinaya degenaansho badan buu ilmuhu ka helaya waayo nerve system-ka ayuu caawiyaa qofka calm buu ka dhigaa ama waa dejiyaa chamomile-ku geedkaasi baaboosh baa la dhaaf carabiga soomaali ma garanaya wax lagu yiraahdo faa'iidooyin badan oo xagga nerve system-ka ah ayuu leeyahay marka laga yimaado tan oo caloosha u leeyahay dheefshiidka marka yaan loo deyma la-aan geedkaasi waliba kan waa isagii oo tea bags-ka laakiin haddii aad hesho isagii oo caadiya geedkii oo caadiya saa u baxo kale u egyahay meelo laga hela ayaa jirta way fiican tahay inuu qofku isticmaalo aad ayaan alaabtan ugu bogay haddii aad rabtid inaad ka warkeentid waxaan kulahay kuma khasaari doontid insha allah ila tijaabi haddii ay ku anfacaan laakiin kumaliyo adigana waa ku anfacaan laakiin anu waan ku raystay gaaskiina waan kaga raystay alxamdulilah hada min fadlillah ilaahay baa mahad iskale in badan ma runtii
aan la taabsanaa laakiin hadda waxaad moodaa markuu sifirigu noqday iyadoo aanan bacteria lahayn haddana gaas badan mar walba caloosha soo deynaysay koley waxaa jira waxyaaba xataa caraad ah oo jirka yani adoona xanuun caloosha a qabin xanuuno kale oo qofku auna ogeyn baa jira oo gaaska xataa kiciya caloosha markaa qofku inuu mar walba isbaaro way fiican tahay anu iyadoo dhowr jeer isbaaray oo dee waxba layga waayay haddana kaas inuu qofka inuu nabur caloosheedu yeelatay un baanan weli is eegin oon ka cabsaday laakiin dhowr taxaaliil badan waan maray calooshaadu waxaa laga yidhi bacterian malihid waxna malihid gaaskaaga unbaa kacsan marka dawooyin baa lagu soo buuxinayaa maran africa joogay iyadu waxaan ku yidhi intaasoo dawaa baa laisoo qori jiro inaan isticmaali jirin xagga laftigeyga anti acid bay ku siinayaan wax kale kuma siinayaan waxna ma qabta anti acidku to be honest ani waxba ima taro anti acidka waxba ima taro dadka qaar buu ka dejiya laakiin ani xataa igama dejiyo laakiin alaabtan baa caawisay oo iga dejisay alxamdulilah ina wixii ku anfacaad isticmaasho ood qaadato ood laasimtanaa muhiim bay tahay runtii intaasaan rabaa inaan maanta inala qaybsadan rabay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu